sixiroolayaal buu u tagay afkuu ka xiray xoolaheeda dhanna wuu gurubsan jiray haddana sheekada waxay ka kacday markii ilaahay ka soo furfuray oo maraykanka ay u soo noqotay ayaa waxaa dhacday waatay nimanka kan maaragtay dabacayuun iyo waatay la heesaysay halkaasay marka sheekadu ka kacday waa tuu u yeeray uu yidhi soo noqo waatay soomaaliya tagtay haddana wakaa waa dilay marka soomaaliya gabadha ha la badbaadiyo inta caqliga u saaxiibka oo iimaanka iyo diinta garanaysa gabadha ha la badbaadiyo meesha ha laga soo saaro ninkaa ha laga furo ehelkeediiyo qaraabada gabadha waa inay u kacaan gabadha waa in loo gurmado waa in qur'aan la saaro waa in qofkaa jokoraha ee foosha xun laga furo wiil waxba haysan isagoo ee kabti yani cirkaas geysay maanta gacan u qaaday boqoradii codka ya boqoradii hawiye gabadha codadkii hawiye ka dhalatay wax la qaada kara ma jirto inaadeer cunsurinimana ma jirto qabiil qabri kula ilama galaayo laakiin isagii u qalman arag ahaan iyo dhaqaale ahaanba hadduu gacan ku darsaday toodkale miita in madaxa laga jaro istaahilaa hadda muu dilin waxay ahayd 4 habeen ka hor xalay xataa Axmed Saki baa wada hadlayna isku waa dhab xidigaha fanaaniinta dhexdooda ku dilay uu ka hinaasay dhal uu la dhacay jiiso ka hadda laakiin way fiicantay walaalo hadda lama dil xalay habeen hore midna ma yahay nabada oo ku dhuftay marka wax daqara wax dhiiga ma ka imaaday yes wajigu kala dhacay ninkan uu ka hinaasay fiiya waa gabaraan noolaynaa isagina wuu xiran yahay dhala iyo fayska dhala iyo wejiga abay dhageyso meel bay wada fadhiyeen xidigaha geeskay wada fadhiyeen waxoogaa dhirbaaxiyo waxbuu ku dhuftay markii dambena wuu kaxeeyey gurigu ku dhex dilay ninkani xalay iyo habeen hore midna may ahayn waxay ahayd 4 cisho 5 cisho ka hor bay ahayd fanaaniinta wax la joogay xidigaha gurigu geystay wallahi suxun buu dilay laakiin isagii hadda wuu xiran yahay marka Axmed Saki baan wacay Axmed Saki waxaan ku sheekada dhamiya waa run buu walaalo way jirtaa wuu dilay laakiin way soo socotaa hadda way dhici kartaa inuu wiilkan gabadha nolol ka dhex arkay oo isdhahaayo macaantadaada bedel say wadanka kaaga kaxayso wallahi taasna way dhici kartaa haddaba wuxuu ku dilayaa la yiri Nairobi ay yimaadeen layna u xaraysnaa laynkiya la soo diiday negative la soo siiyay ka bacdi iyadana waxay tiri UK aan ku noqonayaa meeshaada joog ama hargeysadaadii boorka badnayd ku noqon marka walaal ninkan Safiyo magaceedii farxiyo horteedna 7 marriage uu soo maray yaraanta intee u taalaa 7 marriage ma yar yaa dhaha isaga 7 marriage uu ka sheekeeyay maxaa dhacay arkay fadhiga waa kici waay ilaa laba kanin aad doonto waxa amay been tahay lambarkeeda iga bax waaraadi lambarka ko iga baxay kadib walaashada waxaan rumiyaa ku dhawkasay tirhaa horta waxa rabay inaad mataqaanaa farxiifiska horta gabar oo aad u miskiina waaye qof kasta oo Soomaali gabadhaas markuu daawado waxa dareemaya jacayl iyo naxariis aad dareemaya ma fahamtay gabar iska miskiina waaye oo hambale oo Soomaalida meel kasta degan yihiin xushmad saa'id loo haayo waaye laakiin gabadh inay wax ka qaldan yihiin everybody can see hada showga xamar ku qabanaysay ama wareysigii Kenya looga qaaday qofkii daawado uu arkay ma fahamtay in something she's not there ma fahamtay badaan iyaduba tabcaanka oo qofta weyna oo maxaan ku raada ilmaha anta wilwiligle oo habeenka aan seexanayn ilmaha wilwiligle oo 18 jirka oo habeenka aan seexanayn oo maxaan ku raada 5 jeer ka caaya oo maxaan ku raay mar caana raba mar maaragtay raba shaqo kale raba da waxa ay taagba uma ahayn ma garanaysaa iyadu walaal taagba uma ahayn ilmahan waxa la dhahaa noocan markuu yahay waa buuriya xarig weeye ma waxa way waa 18 jir waxa way wilig gabadhii tigir gooso xagga mar maalin walba gabadhii ii kaalay farxiyay goortu xabad dhalaa isku jabsho oo foodka aba iyadu ka dhaxarka farxiyay saadul walaalo wax baan ku wada kaar baan ku raadinaya wilig gabadhii waaba tan gabadhii dhulka gashayba say wiil buuri xarigla amaane walba ay tigirgu goosanaysay oo halka ugu tageysay oo maxaa ku habeenkii oo dhan ugu cayaarayay ilaa waxa weeye qofku markuu 40 gaaro dumarku markay 40 gaaran waxay u baahan nasnin waxay u baahan biyo qabow waxay u baahan nolol degan laakiin qof saa u taagan oo saa u wareegaya wilig waa habeen walba kugu dur cayaaraya walaal يا قبضي وابطن عمري قاعد يبعجا كده قبضي واتن عتودي قبضي واتن فكرتي قبضي واتن يضن إن محاكر هذاي فرحية وابتيس بالشبع إلا قف كان واقف إلا الماس الداري تمجد كواد الشيء صومالية قبضها صومالية لو وأركتن ما أنت شنتر بوحبة هي أو وحلا هاي العكين هل كان حق السوق هذا ولق قبضي ولق تاسي ولق لهاي فرحية تضبط سنة ولق تاسي كتشتي
ilmaha buriya xariga oo maxaan ku raad erkoleystaha ba ka adeegtay aakhirkii u dameeyana farxiyo waa taas waa la dilay farxiya ilkii waa laga daadshay maxaan ku yiraahdaa madaxa dhalo waa laga dhiftay lacagti birta laga soo tumay horta farxiyo fiskoy walaal waad eetay lacagtii 15 kun ahayd oo la siiyay oo la yiri barigi lagu maamusay oo la yiri maadaama fanaanadii weyneed ee wiilkan ay guursatay ay ku maamuseen horta way eetay waxayna ku eeday laba masalo sharafteedii horta hoos bay u dhacday hooyay ahayd 7 caruur dhashay caruurteedii baa Yurub joogta maxaan ku raahdaayay oo maxaan ku raahday caruur leh horta walaal asagaas horta waxay noqotay qofta kaliya ee saqiirtay gabadhaas 40 sano markay gaartay dumarku markay 40 sano gaaraan aqli bay yeeshaan laakiin farxiyo waxay noqotay qofta 40 sano markay gaartay ilaahay caruureeyay oo caruur aga u gashay